Maxamed Ismaaciil Ibraahim oo ku magac dheer Govinda ahaa macallinkii kula guuleystay degmada Gubadley ee gobolka Banaadir tartankii dhawaan ee dhammaaday ayaa hadda si rasmi ah waxaa loo magacaabay inuu leeliyo sanadkan ee degmada Kaxda. Maamulka degmada Kaxda ayaa u magacaabay macallin Kumando oo markaasi ka mid ah macallimiinta dhawaangalka ah ee u suurtageliyay in kooxda degmada Gubadley ee tartanka ay ku guuleystaan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Waxa uu ka mid ahaa macallimiintii waayo aragga u lahaa kubadda cagta isagoona degmada Gubadley ee kula guuleystay tartankaasi. Sanadkan ayaa waxaa la filayaa inuu ka soo muuqdo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir isagoona laga filayo inuu kula guuleysto tartankan maadaama macallinkan khibradiisu ay hadda tahay mid aad u sareyso. Degmada Kaxda tartanka ee degmooyinka gobolka Banaadir marka laga eego waxa ay kaga jirtaa kaalmaha markaasi dhexe iyadoona weli aysan imaanin qeybaha kale ee tartanka ee loo soo gudbo. Inta badan waxa ay ku hartaa guruubyada iyo sidoo kale sideed dhamaadka. Sanadkan ayaa loo doorbiday in markaasi dib loo soo dhiso kooxda. Macallin Maxamed Ibraahim ayaana laga sugayaa in uu markaasi dib u habeyn ku sameeyo kooxda si ay ula jaanqaado degmooyinka sanadkan ee tartanka xifaaltanka adag ee kula jira. Sanadkan ayaa degmooyinka tartanka waxa ay markaasi noqon doonaan 20 degmo maadaama horey ay u hayeen 3 deegaan oo ay markaasi Gubadley ka mid ahayd iyo Daarusalaam iyo Garsbaale. Sanadkan tartankan deegaan ahaan kuma ciyaari doonaan, waxay si toos ah ugu ciyaari doonaan iyaga oo huwan magaca degmooyinka gobolka Banaadir. Degmada sanadkan koobka difaacanaysa ee degmada Gubadley ayaa iyadana markaasi laga sugayaa in ay magacaawdo macallinka leelin doono. Sidoo kale diyaargarow xoogan ayaa markaasi ka jira degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasoo isku diyaarinaya tartanka qeybihiisa kala duwan oo dhawaan uu bilaaban doono September ama bisha nagu soo fooda leh ayay bilaaban doonaan tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. Maxaa laga filan karaa macallin Maxamed Ismaaciil Ibraahim Kumando in sanadkan uu isbedel weyn ku sameeyo mise kula guuleysan karaa degmada Kaxda koobkani? Macallinka markaa xilli ciyaareedkan ayaa la filayaa qaabka uu ku soo gali doono iyo sida uu markaasi wax ka yeeli doono qaab ciyaareedka soo socda tartanka oo idil. Horyaalka kubadda gacanta markaan eegno maanta kulan weyn ayaa markaasi ka jira oo u dhexeeya kooxaha kubadda gacanta ee Hegan iyo sidoo kale kooxda Horseed. Caawi maalin ayaa iskaga hor imaan doona tartankan xiisaha badan oo la wada sugayo waxaana hadda gabagabo maraya horyaalka wejigiisii hore ayaa maanta la soo gabagabeyn doona waxaana toddobaadka dambe bilaaban doona wejiga labaad ee is aragga horyaalka iyagoona loo qabtay 4 kooxood ay markaasi kala yihiin Hegan, Horseed, Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda Madbacadda oo markaasi ka mid ah kooxaha ciyaaraya. Marka aan fiirino kulanka labada kooxood ee Hegan waxay wadataa 1 guul halka kooxda Horseed ay wadato 2 guul. Hegan kulankeedii weli ma aysan ciyaarin Madbacadda waxayna ahayd qeyb ayaana looga tagay oo lama dhameystirin roob awgii ayaana loo joojiyay. Waxaa la sugayaa in kooxda kubadda gacanta ee markaa Horseed in galabta ay koobka ay markaasi difaacan doonto. Haddii ay markaasi badiso waxa ay yeelan doontaa 9 dhibcood halka Hegan ay markaa fadhin doonto booska labaad oo kaliya ay haysato 3 dhibcood waxaana u harsan oo kaliya halka kulan markaasi la ciyaari doonaan dhigooda markaa Madbacadda. Haddii ay ka badiyaanna sidaasina ay ku heli doonaan 9 dhibcood oo isku dhibco ay noqon doonaan. Is arag kale ayaa markaasi bilaaban doona iyo sida ay markaa isku arki karaan dhibcahana loo kala qaadan karo ayaa noqon doonta mid aad u adag oo koox walba waxa ay ilaalin doontaa in ay markaasi laga guuleysto oo guul ay raadin doonaan. Labadan kooxood waxaa ka muuqda diyaargarow xoogan marka laga eego Hegan iyo Horseed waana 2 koox ee ku xifaaltama horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha waxaana inta badan ay labada kooxood bay soo bandhigaan ciyaaro aad loo jecleystay oo markaasi ka mid ah
ciyaaraha ee ugu daawashada badan kulan ciyaareedkan uu markaasi yahay. haddii aan eegno kulankii shalay ee markaasi u dhexeeyay kooxaha Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda kubadda gacanta ee Madbacadda, kulankoodu kulan cajiib ayuu ahaa. labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleysto, waxaana inta badan kulankaasi noqday kulan dadka daawanaya ee aad ula yaabeen, waxaana labada kooxba ay ahaayeen kooxo ciyaarahooda aad loo jecleysto walow ee goolal badan aan la iska dhalin. waana kulankii ugu goolasha yaraay ee la iska kala dhaliyay kooxaha Madbacadda iyo kooxda markaasi Muqdisho City Club. waxaa la iska dhalishay 11 gool, 9 gool oo kamid ah waxaa la yimaadeen gabdhaha Muqdisho City Club, halka gabdhaha markaasi Madbacadda ay la yimaadeen 3 gool oo qura. sidaasina waxaa guul ku gaaray gabdhaha kooxda Muqdisho City Club. tartankan kooxdii ugu goolasha badan ee laga dhaliyay waxay ahaayeen kooxda Madbacadda. kooxda kusoo xigta ayaa waxay ahayd kooxda markaasi Muqdisho City oo iyadana 30 gool laga dhaliyay, waxaana kulankii horseed ay la ciyaareen Muqdisho City laga dhaliyay 20 gool, halka ugu badan goolasha waxaa laga dhaliyay kooxda Madbacadda xilli ciyaareedkani. tartankan iyo waxyaabihii kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa, iyo sidoo kale ciyaaraha kala duwan ee dalka. saakay ayaa markaasi xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ay qabteen tartan loo qabtay ciyaaraha fudud ee orodada degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana tartankaas soo qaban qaabiyay xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya oo hogaaminayo Mustafa Cabdi Aziz Maxamed oo markaasi ah gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud iyo mas'uuliyiintooda. ayaa saakay tartan waxay u qabteen qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. 12 sano kadib ayaa la qaban doonaa tartan oo caynkan oo kale, maadaama ay ugu dambeysay 2010kii. wixii ka dambeeyay wax tartan oo ciyaaraha fudud ah ee lagu qaban magaalada Muqdisho, waxaana inta badan hoos u dhacaasi u keenay guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed oo markaasi hagraday xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya.